واي وهكاك بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين waxaan ka bilaabi doonaa guuxa ka jira magaalada Muqdisho. واي Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa wararka waxa ku jirta in la bedelo بطورة waxa lagu eedeynayaa reerkaagood kaad ka weyd ila meesha reer baa lagu joogayo هذه حبط بوت كوي nin walba waxa la leeyahay reerkaagii waxa ka keen كو xaq iyo dulmi labadaba kii laga doonayo واي labadii ninkii midna ka keen waaya waxa lagu eedeynayaa sidii nin dastuurkii jibiyay reerkiisii أيوة كيف ayuu ka adkaan waayay waayahay xamse markii ra'iisul wasaare ku dhigay xasan sheekh ma wuxuu u doortay nin reerkiisa ka adag mise wuxuu u doortay نور الشغية nin saaxiibka oo kula shaqeeyo istaqaanaan وسؤال wuxuu u doortay saaxiibtinimo iyo gacan yare طبعا dee gacan yarahaagii maxaad markii hore shuruud uga dhigi weydoo odhan weyday ورا رتاك تتا arrintaa waa haddaa reerkiina keenooda iska tegaysaa waxay ahayd inuu ku canaanto oo uu shaqada kaga eriyo gacan yaranimadii uu qaban waayo oo kale بريو ليك دكتور taasna uu qabtay واي taa gacan yaranimada وقت iyo labadeedba uu qabtay واي laakiin arrinkii axmed madoobe iyo ciidankii federaalka fashilmay dagaalkii ay galeen ayaa imika isaga dusha laga saaraya واي waxaa la leeyahay isaga ka dambeeyay in ciidamadaas ودابلو لقي la ماشي daablo meesha oo ila axmed madoobe xoog baan ku mari karnaa ama masabid ha noqoto nabid ama xaqiiq ha noqoto واي laakiin marka shaqo laga saaray waa in eed been Soomaaliya لقوا يلا lagu yeelaa واصح waliba lagu dedejiyaa هاي horena xasan sheekh madaxweynaha federaalku wuxuu meel marsaday in ra'iisul wasaaraha uu eri karo قطو دور iyadoo oo aan maxkamad la geynin meeshii برلمانك qoladii baarlamaanka iyagoo loo geyn inuu eri karo صحيح مدحوين yaa loo yeeray doodisho kuma aha yaasino ووزيرك أمني قرنك يا هري مارت كنا عم يجري مارت قرحي هوتيل إسرائيل ويرجع اسوء كل داعم مجري الله يخليك طبعا markii dib waxa la geeyay qadar سفير قدر الله ambassador inuu ka noqdo ambassador la dhigay inuu danjiro ka inta noqdo uu yimaado soo intuu mariiba samay inta soo sanad kor okay ninkaas loo yeeray way ama isaga hal yiraahdo wasaare bedel ama hal yiraahdo reerkiina yaad aan kala tashanay yaad oran lahayd ra'iisul wasaare ka dhiga ayaa loogu yeeray way looguma yeerin arrimo ku saabsan xiriirka qadar iyo inaga maaha hay xamse bedelaadiisa weeye socoto ayaa socoto wala burbus gareyna marka waxa Soomaalida dhibaatadu haysta ilaa madaxweyne ilaa taliye qaybeed oo booliska hadii uu doonayo cid ka hor timaado cid ka soo horjeeda waa inuu raadiyaa 4.5 wax ku qabsadaan 4.5 loo ku dagaalamaan والله بلا سياسة عصبانة لبروي وركس مو قلت سبيعا فربط بفعل وقف سدا فربط بفعل وسبدالها واي حمر ما كقيب قلت سبت ما كان حمر جون وقت جرم اوكي marka mararka qaarkood monopoly oo kale adoo iska socdo xaafad dariska ayaa sabileeyeen dabcan waad iska laxanaysaa wala qadinaysa wala qadinaysa qadada soconaysa soo bixisa imika waxa isma jiraan waa 4.5 وانا reerkaaga kula socdaa yaa og inaad qarxinaysid dadka qadinay miyaa looge maya ya maya marka imika is aaminaadii ayaa yaraatay way waxa jirtay yaasino bisad hay laba nin oo qadaynaya oo hilib cunaya ay soo istaagto miyaw bay tiri hay miyaw doo xidiba bisad kala ka sii dambaysa صح waxa isla bisad dambe hadii tan wax la siiyo adiguna waa heli doontaa positionkeedii gal way bisadna waa taqaanaa cadka markay qabsato wala carabta hore baxda meelahaas ku soo runtaa صح hadii rabtaa soo noqoto hay kulaashi ama bisadii ama bashadii intaas magac waa la yiraahdaa ama yaanyuurti markay dhowr jeer dhawaaqday ayaa nimankii u adkeysan waayeen way dabeetana waslad weyn hay ay islaan xabadaha iskaga mashquusho iska dira wasladii markay sida ugu tuureen halkay ka qaban lahayd ay dib u booday 20 talaabo way tii kale oo meesh ku sugaysa dusha kaga soo dhacday way tiina waa la orday albaabka laga baxay way labadii bisood baa markay soo raystay hay war maxaa soo carartay waxa tiri maxaad u soo carartay oo jiray hay
إلا نمك هيل بيكون صوتورين ها وهذا هذا الردني واحد تري نان نمك الصومالي بهاينو حالك سيدي هوري معها لما آمنوا إمك ما يبي إن بام كوس صوتوران إيه كلام كلام وجدي ما كانوا وجد مركوا مرة بس كيلا وحول بنعكره مركب بسدي وصلت مرة صوتوران رب سين شتي ما شرتو حدينا كوردوال هذين كوردوال زي من دايرات بام بالغو صوتوران طبعا مركب كرسيني يحيى الله مي وين مركب على الدنيا باش أبو بدن قبل كاس أبو بيلود بأبو بدن ودقن مركب سائر هذا معناه وحوي عد كلمة دقنا ما صح أبو بيلود بأبو بدن ما شرتيه باشن وقاعدين وكتر سنة هاي الزرع أحمد مدوبي oo imka doodii ay hayaan waa in loo raadiyo cid kale oo la yiraahdo Jubaland idinka ninkan la leh annaga idin caawinayna dal doodii nahay qabsada oo madaxweynaha ka noqda way cidaas markaa mareexan baa loo arkay waa koow waa fikrada sax waa sidii madaxweynuhu u arkay way taas waa doodisho loogu yeeray waxa la wargeliyay Yaasino barre hiiraale korneelkii hore ee ka dagaalmi jiray Kismaayo والله بدون يكون دجال من مكسماي ويكون دجال من شرين والله لا حديده كو سجنا marka la wada xiriiray waa la keeno waa la hadlay ma laakiin waa la hadlay sidii dagaal loogu qaadi lahaa xidmadooda in taladeeda uu sawna dhiibto way barahii ilaa marka telefoon loo diro ma aha inta badan kaalay nabad ka shaqeey dabcan kaalay wasaaradda beerahan ku dhiibeyna ma aha isaga hadii la hadlo kaalay dagaal galweey xabad way marka gulf coladeed oo la doonayo rogaal cilis dagaal rogaal cilis in la sameeyo dawladii dawladdu way ka quusan laadahay bal muddo hal la bixiyo in nabad lagu soo dabaalo in ninkii isbedelo in idinku isbedel kala keentaan waxa soo dhani meeshii ma jiraan dagaal ka horgeey waxa la doonayaa ciidamada federaalku inay mar kale noqdaan oo ay ka soo galaan meel dhulka ah dhinacan maxaa la yiraahdaa هاي بذا مثلا على الجبال بؤالي دينا بؤالي ها حقيس ان مكاس نعزل صمرو البرد لوكاس دير حقاس حق لوكا دير ايا لا تجابينها iyadoo yaasiin ay qoyan tahay in ciidamadani federaalku iyagu ordiyo qoreysata ay galeen Kenya صح Kenya waxa la soo celiya raggi way 230 kamida asylum bay dalbadeen qoxotinimo magangeliyo ay dalbadeen waayo waxa ku jirta ciidamada nabad sugid sax waxa ku jira police waxa ku jira military sax marka loo eego nidaamka militariga nin iska cararo isdhiibay waxa laga baqay inuu sir badan ay ka helaan dawladii uu galay sax sida daraadeed markuu xisaabtamo wuxuu isla armaa lagu dilaa marka xagga tagtid taban adigoo taliye dhan ahaa oo nabad sugid ah oo iska dhiibay askar u dhiibay oo qol lagu la galo waxba laga qoray waxa uu sheegay leeyahay waa lagu dili karaa dabcan labii soddon asylum bay weydiisteen hay'adda qaxootiga UNHCR ayaa iyaguna weydiistay dawladda Kenya wali aqbalaadoodii lama sheegin qaarkoodna waxa la soo celiyay intii rabtay inay soo noqotaas la soo celiso qaarna waxa dhulka soo mariyo iminka bu'aalaha in leenahay iyo lagu soo celin doonaa waxa lagu soo celiyo halka ka dagaalaman mar labaad bisinka واليابين دخلوا في الحيد ويا الشباب تيبا halkan ka xeelad badan oo dhinac mar banac laga soo maray oo ka muhiimsan sax ma xagga badhaadeen ka soo galaa ma xagga badda ma xagga cirka ma xagga dhulka meesh waxa moodaa Ukraine inna lillahi odayeen halkii uu garacdiyaa oo fadhiya oo suguya oo sugaa bulay imaad waa sugaa dadka warahay bring your kids amal isoo wuxuu leeyahay 10 baan idin dhigay waxa ka baranaysaan 10 kala wuxuu noqon doonaa inaan badda ku daro war kale ma jiro bisinki intaas meesha ka jirta way Sadiq John oo hore taliyaha ciidanka police-ka Banaadir ahaan jiray markii dambe Djibouti noqday koow wuxuu ahaa taliyaha booliska Banaadir hadana nabad sugidda gobolka Banaadir laga dhigay hadana wuxuu noqday xildhibaan hadana kaaliyaha ninkii baa loo yeeray hadda waxa laga dhigay kaaliyaha nabad sugidda qaranka iyo kaaliyaha noqday marka Sambolosh يا كاري وهان شري سمبلوش نين محيدين وربع شهور ليرة وربع شيء مركب ورستح إنك إنه وناكسن طبعا ها ودتك أنا كإيد شيء جني طبعا ها أيوها ما قرني صبت اللو بدلي وتبوت اللوجا يري صادق جون يكون كويشن مارك إيه صار إيه تاج طيب بيكتها هاي
in gulufka colaadeed ninkaas loogu socdo ninka loogu socdo sax in la urursado rag fara badan oo wax ka og ama nabasuud ha noqdaan sidoon ama ciidan ba ha noqdaan oo warar bixin kara way iyaduna halkaas la ismaraya intaas waa muqdisho inta ma haysa shirkii ka dhacay saddex angal three ahaa saddex geesoodka ee Turkiga ka dhacay ee Abiy Ahmed iyo Xasan Sheikh iyo Erdogan wixii ka soo baxay natiijadiisi baan in yar dul mari doonaa way dhinaca Ethiopia wanaag iyo guul ayaa uga soo baxay ay sheeganayaan way dadana waxa la xidhiidhan Francisco Macron Emmanuel Macron ayaa imanaya bishan aan ku jirno 22-keeda Ethiopia oo Afrika ba imanba waa markuu guriisa Soomaaliya in dhaweyd ayaa imanaya muxuu imanayaa in la bilaabo tababarkii ciidamada badda ee Ethiopia ciidamada badda waxa la sameeyay iyagoon bad haysan maraakiibta waxa la soo iibsaday iyagoon bad haysan tababarka hadda waxay bilaabnaa imika waxay leeyihiin bad baan helay waa doodooda hadda waa sax Soomaaliya nasiisay bad badisay loo siiyay marqabka loo siiyay intaasoo milyan oo dollar baa ku baxaysa markabkiiba tababarka nimankan la siinayo way Francisca xil qaaday isaga bixin doona way heshiiskaas 2019kii ayaa ay dhaco hore loo soo galay dabcan halka yaasiin waxa durba ka muuqata in Ethiopia ay ku taamayso in badii Soomaaliya qaybteedii ay heshay waa sidii hore u sheegtay maartay gari gardarrabo okay ku hesho Djibouti baa iyaduna hadashay meeshii waliba ka socotay Djibouti waxay tiri ilaa ay hadda Ethiopia kama hayno wax jawaaba oo ah badii Tajura aan siinay iyo maya midna ma oran maxaa qaldan inna lillahi wal yabiya waliga ma aragtay nin le gabadhan dhalay saadka waan ka naadiyay ilaa ahad wala jawaab ilaa maxaa jira nin iga qaat بس سؤال باش تعال dadkii jawaab isii wasaas oo kale nin bad ku dhawaaqaya bad oo la maxaa la iga qaadan lahayaa dima garay wax ka sii wax ma jiro okay badan marka iyagu waxay rabaan team military mid business marabaan mid business oo yaro dhowr marba laba markab marka soo xirato marabaan mid deegaanka dhigtaan Ethiopia marka waxay toos imika u bilaabanaysaa in hawlihii badda iyo ciidamadii ay diyaarso la yiraahdo badii galab badda way Ethiopia yasin ilaa hadda anaga heshiiskii iyo safgaradkii anaga iyo Muuse Biixi waan ka baxnay iyo waan hakinay iyo waa sidii midna ma oran Soomaaliya hadal qaadan in la ilooba la dhahay see loo ilooba marka heshiiskaasi waa valid wuu jiraa wali dabcan sharciyan وشقينا وشرا صح ما دام أنا جانب كنا كنقول جانب كنا كنقول طبعا السنة هوشيسة أيو ليه أنت ما يجهزها وحكي كسب حدثك ونسوق جدنا إباه ودي الأوقات حمر روح الوقت تضوات كان شركة أمنية قرنك صح مرة دي أمني لقاها الله حقنا وانا يقول قول في علاقات بكتاجن طبعا شو بلاني حقها قبل ذي الحين وهذا قبائل بس دي طبعا إلى عرقابه مركز ولا سجدة أي حبة الإسكال الداري وين أمني وضنك وإنسف عن الله الله وهو ريري وحا قدوميني الشركة مدحونا دولة الفدرالية الصومالية وين وحا وربحين لقى دقيست ماشي أنا إيجاب سواتنا هدول هاي وزارة دبيرها إيه ورابك وزارة دبيرها مش بحقي إيه ورابك وزارة دبيرها أمني محاش أقول ثم أمني أي حال قال لي إنا لله وإنا إليه وزارة بيري ورب ماشي محقق لي إذا فارس محقق لي أمني قالوا حنموذي قلقلتوينك يحسلوني درضة الشباب يو أسكرت غوريا أسكرت تدس خلاينيس يو حاجة يو عاصمة البلاد أمان كذا إنه حال قال لي طبعا شكل ولا بدنا بقى وي وحالك لي وزارة بيري وربك وحنا كنا سنة اللي لعبت أنا بيري يدوق أنا لو شكل وحنا استبرق الدجالة دي مقدش لوري سكاشنكي أيضا عنده بي بي سي oo xamar waxa ka dhacay dagaal xaga waxa ka dhacay dagaal ay baa wax bilaabantay maalin ilaahay markii ciyaaro degmooyinka ciyaaraan marka odayaal baa BBC da dhegeysanay cadan oday raacadmeeda
oo BBC dhegeysanayay ayaa nin ku yiri aan markaa agtiisan joogo waan maqlayay BBC-da qolaa waxa laga badiyay 4 gool way iyana laba laga dhaliyay 4-2 ku dhamatay waa ciyaar hadda aan markaa BBC-da ka maqlayay inay ciyaar tahay ninka Xamed jooga soo warramay odaygii baa odaynooyima wuxuu yiri assalaamu calaykum BBC ma dhageysteen odaygii baa haadir maxay sheegtay dagaal xamar ka dhacay buur idaacaduna dagaal ma sheegin odaygii baa markaa soo eegay ciyaar ka hadlays may dagaalka ay dhaafay ma garan waay markaasuu yiri ciidamo ku dhimatay dagaalkii kii kala weydiinay mugti qolana 4 baa ka dhimatay buur qolana 2 إنا لله وأنت يا ابن أضيع حنقول أذر قال لي هو أفرت لمتي لا لمتي ذاك مقدشوا إذا عندهم كل يصير مو مغلين ما يدافتي مركز سيري ما مغلين كبدل عيار مركز صار لها وينو بدل يعني وضقان ما جور البدل فين مقدشوا أنا أفق عنه يا أنا أفق غير أنا برتين ماشي وجنب بكبدل وقول عياري أقول ما أقول مركز لما قول الشيء أفريل ولا عارف ولا ما قولنا أفر بالله قد لي مركز أفر تبي قول نقول دقان كلها أنا قلنا ورينا قولنا اللي بالله قد لي مركز هذا شركتي علادي وجرتها oo hirfaal isku qaadayo ay kula waraabka iyo beeraha ayaan warbixin ka dhageysanay wala wareer marka halka dagaal baa jira maraya yaasino waa dabcan way waxa jirta iyaduna روبو منصور منصور ayaa hadlaynayo wuxuu ka hadlay marka sileelaysid waadana warbaahin kamaradu ku shidayn iyo dhibkeeda leedahay waa sax waa marka aad ignore gareysid dadka ku hor fadhiya ee la hadlaysid ama ku daawanaya aad carruur ka dhigtid sax wuxuu yiri waxaan maqlay nin baa iga sheekay ashabaab buul nin ayaa iga sheekay runii been wuxuu sheegay garanmaaye isaga iga sheekay wuxuu yiri ashabaabtu geed hoostii bay yimaadaano marka canshuurta qaadayaano markaas sidaa iyo sidaa u xisaabtamaan geedaha hoostooda ay ku qaadaan canshuurta baasha حتى أنا يا حبيب أبي أذهب قادر جبت استجاب دم ملحة هذا صم نكى ما صو أفهين كي ما نكى العكس لو جيت بينه أفهين كي باكله أمير كحجين كي معاه أمير كحجين كي باكله نكى وسري نكى حجوة أمير كحجين كي باكله أفهين قدبي نبى يقول يجري أنا وما أرجع نبى يقول شيء كيسيد الشباب أي أقعدان عن شرطه مركا ما أرجع شرطي نين لأن يروح صاحب كاب بين شيء marka wasiir been sheego ama xildhibaan sheego ama madaxweyne sheego ka hor ama dawladii ay been sheegto wala qabana wala layaaba marka waxa ajiiba dawlad been sheegaysa sax wasiir been sheegaya amiir xuyeen buu ahaa si fiican boqolaal Soomaaliyeed dilay markaasuu ku leeyahay codadka waxa jirta isagoo leh ha ii keenina nin nool ee madaxiisa idinkoo ka soo gooyay ii keena dabcan ay YouTube ku jirtaa أنا هذا اللي بفرفان منه مركزو كليه نبى يشي كي أنت سنة جرت يا كايلة يا حتى أنا يا أبي الوين أنت سنة يدوها ويجي يابسي واقرت هراين مقدشة وسعنا وين إرجع واحد دنيا عن الصومالية واللي بقى وقول رح البضانة أنا أترجمه وين قندراس واحد قال السعودية العربية هي وزارة الشقة هي أرماء بالشدة الدولة فدرالها الصومالية وين وزيرك وكسر كذا كونفور قلبات يا شيسكا لا صحيحني وين صور قلت عن كتوسو وزيرك يقول هذا سعودي شيسكا اسمح الله ما سياسي ما هو با السعودي هو بوسينا السعودي هو بطلع بوسينا ما تبري هاي العيت محسن الدنيا العيت من الهوس كاور ماي وحلوك بدلنا حلوك الدنيا قبله شقالة أو كشقية قريها عربت adeegtooyin dad qaar baa ila jaariyad ay waqooyiga qaar uga yaqaan laakiin erigaas xoogaa waxba ku jira erey yar qalafsan weey laakiin af Soomaali hadaan eego adeegto waa magaca saxda ee uu leeyahay ayaan qiyaasi karaa inuu ugu dhow yahay adeegto guri dad uga shaqeynaysa dabcan waayahay waxa la doonayaa imisa dad ku dhow 800 oo dumar 600 إلى 800 طرح. هل هو أيان درء دولة حسن الشيخ برول بقوته قبلها سوماليات إجابة جيستا وزيرة أساها وشقيها هذا أما أسيق برنامج صوت أمي لكن مرول بالدولة دانية اعتماد وحسن الشيخ قوته
dhibaatada ugu horeysa waxay ku dhacdaa dumarka Soomaaliyeed halka waxa igu qoran xasan sheekh xilligiisa maxaa ku soo beega dumarka gabdhaha mis ogeeyaan taniyada halkan igu qoran inta aad tiri balkiina waa taas wajida dabcan okay gabdhahaas jaamacadda carabta ka mid tahay Soomaaliya xeerka jaamacadda carabta wuxuu dhigayaa dal ka tirsan jaamacadda carabta sida Djibouti ama Soomaaliya haba yaraatee inaanu ka qayb gali karin lagana soo qaadin karin gabdho u shaqeeya carabtaas oo wadan kale oo la geeyay Saudi Arabia ama Imaaraat ama Bahrain ama Kuwait whatever jaamacadda carabta wadan kamid ah aan la ogoleen sharcigaasi waa sharci jira oo xeerarka jaamacadda carabta ku yaalo halkan waxa la leeyahay 600 oo gabdhood oo laba diyaaradood تريكينا وبوين ومسدح بالقاضي أمني جودة عفمات كودا لبعض الجارت وكل وحصل إنه على سكر عليه يا سينا وكون كوي كهري أنت أوجا لح إلى سديد بلدلي انتي وين ما قال حوجي وحل حوجي دور هاي أول كفصدي ما قال ما رتي دباتوني كانوا كل حاجة وحل وسمي الدونسي قبل مركز شغال لما يسعوا والله صحنا يا سما طبعا سيرتيد بالوقت البحرية واي سريرتين سي أنا وبحسن اللي بريء عذاب كلا وطالع اللي بريء عذاب كلا وطالع واي odaygii reer kala ahaa markay islaantu meelaha adeeg aado ayuu iyadii qabsanaya ka soo ridbulay inna lillahi wa xog waxa jirtay gabadh inala soo xiriirtay xilligii hore waay gabadha ma garanaysa nambarkay ku soo heshay laakiin somehow way soo heshay waay qoraal bay soo qortay ninka caankaas ma tahay baan idhi waxay tiri gabadh Soomaaliyeed baan ahay oo gabdhaha xamar laga soo qaaday waay waan baa ay hoogay bay tiri sax lugtan ka xidhnahay صح WhatsApp-kayga waxaan furaa ama telefonkayga mariya dhif صح please dad Soomaaliyeed jidda jooga in jidda ma garanay meesha صح oo ila soo xidhiidho isoo raadiya oo address-ka aanu sheego ay meesha iga wado adaa telefoon ku hadli karay magaalada jidde ii raadi way on muraad ilaahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun la hawla wala quwwata jiddo dhan baan la hadlay صح waraysadki war meesha ka yaaca war gabadha doona address-ki wixii bay soo helaan gabadha aakhirkii way la baxsadeen ayga wada ka waday meesha ka waday way ma garanay sida lagu wada laakiin meesha way kala baxsadeen way gabadhaasi waxa ay ka sheekeynayso waxaynu afka soo mari karayna ma way sax inta loo geystay oo taadi inta xisaabta meesha ma jirto qaarkood maskaxdii ayaa isku dhaxyaaday kala garan maayaan xitaa looma ogola newska inay arkaan TV-ga inay daawato kala garan mayso bishani inay December tahay 2024 iyo inay tahay December tii kale 2025 wasku dhaxyaan marka gabdhaheena sidee ba madaxdii Soomaalidu loo aamini karaa ay sidii adoon ay leeyihiin sidii Liberia loo kani jiray Mareykanka dabcan qaata doonidada oo gabdhuhuna ma ogo online bay u soo galayaan waska masaakiin waa masaakiin waxay moodayaan inay sida xafiis ka shaqeynayaan meel dhaqdhaqayaan meel u hurdatigaan lacag fiican la siinayo dhibaatadaas ku soo fool leh cidii qoysaskooda iyo gabdhahooda halka doonayay geeyaan ka ogaadeen ha ogaadaan way arinta intaasna waa inta waa sidii Muqdisho wax walba loo iibinayay yaasiin dawladani oo qabuuraha iibi oo meydadka iibi oo ku dhoofiya iibi u lahayd guriga hooyooyinka halka guriga lahaayeen ayaa la soo dhigtay dabeetana waxa laga fikiray oo madaxweyne xasan sheekh ka fikiray inuu guriga sidee u iibinaa buuq iyo qeyl Soomaaliya oo dhan ka dhacaysa marka ugu horeysa wasiirka haweenka nin ha laga dhigo waayay waqtid صح wal soo maraya wareeg meelar generalkii ugu sareeyay ciidamada ayaa la keenay ko waxaan raali ahaa wasiirka haweenka aan ka dhigana waayay oo see u noqon karaa adiga ma dhaqanayna qaadi anu ma islaanti ma maxay qadiij maxamed diiri Allah yarxamo mawlaashid baana maya maxaa la doonayaa waxa la doonayaa soo socota guriga in la qaato ayuu iibinaynaa waxaad ku bilaabaysaa wasiirka haweenka isbedel baa haweenka lagu sameeyaa rag baa ku maamulaya صح وكي شركة قيب قال إلى نيويورك سبعة الدمر كي نيويورك سوي ما يساو داونية ويا بناين لمن وين الصدق قاعد يا فيانكا هوانكا وسوونا برا ما أردت عبد الله جودح برا جودح برا وسوونا فيانكا برجع ما حد يقدر كنت كم هو وجهك يا ولي ويا أيا وكوي كسب حيش عشرة زبيان نيكي محمد مركو تجي أيا هذا بشيء كذي قرارات لودي بي ويا قولي بالدنيا هويك قولي هويك أيو تجي
wuxuu xidhay horta markuu warsa xafiis aan rabaa inaan ka dego in halkayga siisaan way aniga maxay ugu ogeydeen wasiirka haweenka arrinta waan ballaadhinay wasiirka qoyska aan ka dhignay waa rag iyo dumar waa wada leeyihiin qoyskana ma rag baa ku jira kow waxaan hadda proposal wadaa lacag gaadhaysa 80 milyan oo dollar kow oo horumar dumarka qura ah sax inaan sameeyo inta ka soo jira markay dumarku waa soo dhaweeyeen xafiisadii ayaa la siiyay ay wasaaraddiisa ku shaqeyn lahayd guriga hooyeenka inta meel socota intaas markay dhacday oo dumarka aad farxeen 80 milyan wuxuu yiri dumarka garaadkooda lagu hormarinayaa aqoontooda scholarshipkooda xirfadahooda shaqooyinkooda waxay noqon doonaan wasaaradda ugu shaqada badan leh dumarka shaqeeydo dumarkii waa farxeen kaalinta waxa ku jira general Gobe iyo dumarkii sama kaalinta kale dilaalinta hoose ka wataa ayagan guriga la iibin lahaa ayin baa liig baa baxay socoto cod baa baxay sira waa la ogaaday dumarka waa qeylsheen ya dumarka waa qeyliyaan ilaa maama Batula ayaa qeylisa iyo ciidankeedii ayaa yimi waxa la gaarsiiyay markuu warsan nooga bax guriyaha anaga ku soo gelin sax odagii la wada mac kumbiyuutaradiisi anaga baxalne ayaa markii hore bixi waayay markii dambe dumarkii baa meesha horteeda mudaharaad ku sameeyo wasaxdanba meesha holka shabiri bay saxnayeen idaacadaha la hadleen sax way dagaalameen ururka waxa la yiraahdaa ururka haweenka Soomaaliyeed si fiican Bashiir iyo kooxdiisii waxay ciyaareen taatika kale waxay yiraahdeen urur la yiraahdo ururka haweenka Soomaaliyeed gobolka Banaadir anagu waxaan aqoonsanahay wasaaradda haweenka iyo Banaadir ururkiina waa expire ma jiro waa inaad doorasho qabatiin iyo meel kale loo soo marmar iyaga baa tashiish la geliyay dhaxdooda marka durbo halka ka cad ururkii haweenka iyo wasaaraddii haweenka oo weligood heshiisaha oo aan diriirin sax ayaa iminka Mariya Dhiigla ka furtay yaa isku diray rag dumar isku diray maqla jire khadiija waxaan jirtay wasaaradda haweenka dabcan dumar baa saameen maqashay may gabadh kale ka horeysay oo soo martay haweenka ilaa weligeed saas u socotay si fiican weligeed isbedel waa labada noolay ragayna masiibay yihiin tan uu sheegeen tan waxba u sheegeen labada marka war dumar miyaartay siixan baa shan maalmood gidaar saxanay gidaar dhulka siixanay waa arkay sida homeless waa arkay banaga jiifan maama Batula sheekh Axmed Gabale iyo kooxdeedu waxay imka leeyihiin madaxweynaha un baan ku qanci karnaa oo hor fadhiisano oo nidhaahdo madaxweyne gurigan aad iibinaysaa waan la socnaa sax annaguna ururkaasaan nahay war cadna siiya waa iibinaynaa ima iibinayna ma iibinayna de waa iibinayna waa qancinaa wuxuu leeyahay iskana baxa wasallahu barak dhawaana masaajid xaafadda kalluunka la yiraahdo ayaa sidii loogu tukanayay أي ما يجعل مثل صور حقلي كيبين يبا إمامك قداش بكو تكذي ويا لا صدق ورك أردنا بودوحي مركو الله بيو كنت كذي أي مربوط كبيعي ولا قد قالوا أنت السنوات ماشى كوتشري أنتوا اللي إجي هاي هذا ماشى جدي ده إسكار كان يجا بم وأتيله هوش ولا مات ويا حرف نوع صوت ماشى كسعتها اسكو درا بلاود يدنا waxaan leenahay haweenka hal loo madax baneeyo shaqadooda way jaran kara imika Jubaland dagaal ka socdaay hal loo diro jaranka xaga hal loo diro xaga roonyi waa gartay laga daay meeshan dumarku mar ay ka soo tuurayaan marna uu leeyahay waxna intaasna waa inta waa gartay Somaliland maxaad warkaysaa yasna Somaliland wasiirada la magacaabo golay wasiirada hay way golay wasiirada madaxweyne waxa ka ah imika عبد الرحمن عير ولا وسيلة وصار السدانة بقول كيف سيدات ندتكم وحدونيين إن مركو صار لسه أي كده قالمان ويقول هذان وحن كمان فيلم طبعا تبي تندتك الديارة لكن هو الدبلوماسي هراء وأمسيو نيره ديسمبر كده جايو واسبالله ورقد ديسمبر هاست كلا صباح وي أروتي مركي السوق عاي قلبوا اللي بيقولين الدبلدكس انت ولا كلام اي او البريد بالستي صح صباح عبد الرحمن صباح مو حصل نولتي بيد بقى الدنيا وي انا عشورته بخنا انا حافظها اسكله استاديمك انا قال قولوا waxbay la soo socdo way nin walba markuu miiska aagay ayuu candhuufti sidii u laqay waxa soo yiri aqligii dadka ayuu xaday waa qaatay very smart ka si xarifnimo ayuu u shaandhiyay baashan
marka ugu horeysa farqa u dhaxeeya isaga iyo madaxweynaashii ka horeeyay not only musabixi maaha kuwii ka horeeyay oo dhan wuxuu kaga duwanaaday dad aan ciyaaraha ka soo qayb gali jirin ay saaxadda ciyaaraha keenay oo ka soo qayb ama siyaasadda way qabaa'il ma dabcan laga hadlaya dabcan qabaa'il aan awal qadin jirin shaahin jirin ba ayuu baashaala kalkiina way iyana dee cirkaasay dabaaldeg bay sameeyeen way sad bursi dad badan tirsanayeen weliba reerkiisa la islahaa qoladiisuuba u badin doonaa ayuu u yareeyey kuwiisii waaba ka dhimay macallin weyn way wixii daba yaacayay ee markii la ololeynayay iyo markii rasaas u dhacaysay ee garba haystay ayuu iyana ka dhex baxay kuwa badan waa wax wareejiyey oo leeyihiin maxaa annaga uu ninkaas nagu maagay marka wuxuu eegay siyaasaddu ciyaaray صح waxa aad ugu kacsanaa dawladda markaan ku kala baro beesha habarawal oo uu ka soo jeeday madaxweyne Muuse Biixi gaar ahaan beesha Sacad Muuse la yiraahdo beel balaaran ayaa diyaar u ahayd inay mucaarad degdega noqdaan qoladii ayuu xusiyay busishnadii ugu wanaagsanaa waa idbi Soomaalidu ma taqaana busishnada ugu wanaagsan waa kuwa lacagta si fiican Soomaali oo dhan inay waxadaan bidoonayaan kulli marka wasaaradda maaliyadda waxa arkaysaa saddex qolo oo isku dilaya anaga rabnay marka weydiisid maxay isku dileen wasaaradda maaliyadda anaga si ay anaga si waay macnaheedu waxa weeye anaga xadaneen loo daayay iyo anaga xadaneen loo daayay waa lacag beesha Zubarawal laba qolo ugu tugtugran صح qolo reer berbera ciise muuse oo taqaanid oo ka dhashay madaxweynaha inay barnaamijka صح iyo qoladan gabile oo Muuse ku garanaysa iyagana si fiican Sacad Muuse labadoodu qolana waxay jecel yihiin siyaasadda qolana waxay jecel yihiin lacagta waa kala sii beeshii Sacad Muuse ayuu ka dhigay oo awal horena ahayd wasiirka maaliyadda horta halkaas ku fadhiisay beeshaasna dad ganacsata ah oo intooda badan ma wada hadii dadku ma wada noqon karaan u badan dad dhaqaale iyo wax leh sax ayay u badan yihiin way beeshaasna hadii alla kaftamo waa beesha nin reerkaas oo sii jeeda lacagta quarter leeyahay suma taqaan shilmaanta yiriska shilinka markaa tuurtid markuu shamiitada ama sibir ku dhaco muxuu sameeyaa awreys tarracdo hayso sanqar male ma bila sanqar ba ma sanqar leeyahay nin milyaneer haduu yahay oo beeshaas Sacad Muuse hadii uu maqlo sanqarda quarterkaas waa khasmi soo jeesto باشمية وليه؟ ماي وشرط الماضي كهذا هذا حسابه صعته باشا وين مغلان وين أركان مان وين مغلان كوارد حتى برنا كل هذا سنقول ولا صعدان واقرت سيدا درادي هدان مالي دال وفريسين بلا يرعس واقرت قولن كلا عيسى مصرا حقا أمو بدنا رقالها إن الدنيانة حقا سياسة أيروان أيا إن الرأي قال بصور السيو باشي وبرتني يقولون وين يانا حاجه سو بدين واقر marka ninka uu fikiro wuxuu siiyay beesha Sibirowal inta maaliyadda iska fariis maaliyadda kuma joogine qorsheynta qaranka ama jaangoynta qaranka ayuu u dhiibay labo diyaaradaha iyo maxaa adu afar shan busishan oo fiican u dhiibay oo midba mid ka daran tahay way ayuu u dhiibay sarka ku dhigtay marka waa joogeen meesha lacagta ma inaga waa meesha kala lacagta ma inaga madaxweynaha waaya marka meesha waan ku yiri saddex abrood baa qadiyo ayaa horta waxan siyaasadan iyo danta siyaasadda laga leeyahay iyo la qabooyinka iyo khiyaamooyinka saddex baa ugu muhiimsan waa saddex beelood habar jeclo habarawal iyo habar yoonis way okay qolo walba waxa ay jeceshahay ayuu marka u raacay wadada la gudoosi wasiiradooda way beesha habarawal muxuu yiri lacagta jeceliin wasaaradda maaliyadda markii la yiri dooshi ka qosleen hore socdeen ليش هبرت على waxay jecel yihiin dagaalada iyo xabadda iyo beebeega iyo waxa wasaaradda gaashaandhiga way ayuu ka dhigay hay gaashaandhiga ma naga haysanaa oo midhan imika la insiina konton beebe way oo dagaal u joog rabsale waxa soo haray beeshu madaxweynuhu ka dhashay maaliyadna ma qancinayso gaashaandhigna ma qancinayeen iyagu waxay dhamaantood niyadda ku hayeen kursiga madaxweynaha وانا هلين صح هدي لا قضيه يهدي wax kale loogu daro يا مدحنا idinku baad leedahay bas marka ayuu la waa qaban wasaaradda qaad marka
wuxuu isiri iminka beesha warsangeli iyana waxaan sir malaha adduun kalluunka ugu jecel yihiin wasaaradda kalluunka u geeyay saasay ku qadiyay ayagana saasay ku qadiyay inna lillah okay qolooyin kale oo ka mid yihiin ayuub iyo toljecle iyo ragcaynkaasna oo hore qolooyinkan la yiraahdo iyana marna way ka xanaaqaan marna way yeelaan magacaas gabooye marna waxa ku naan uu gabooye maniin صح ونبغى نليرا oo gabooye magacba ma haba صح waxbaana la yiraahdaa kala fara badan واقرت marna idaacadaha waxa ka yiraahdaan anigoo gabooye aba positionkaas aan helay wasiyada turk sida doonaan baa u dhigan marka tan officialka dawladdu ay sheegto Soomaaliland baan inoo ku hadlaynaa صح gabooye oo aan iyana shacab diis cabi jirin kursi baa la siiyay wasiira xilbaan ku soo galeen wasiir culus oo beeraha way qadiir baa la yidhi kuna way iyaguna dhinacoodii mabsuudiyeen ma fadhiya halka maxaa ka muuqda cadaalad at least marka waxay leeyihiin durba Soomaaliland oo dhan baa ka muuqata dawladan صح waxaad moodaa marka nin walba reerkiisa marka la yiraahdo wasiir baa laga dhigay in wasiirkaasi reerkii oo dhan uu lacag dhul siinayo mana ahayd ninku isaga shaqaysanayay صح طبعا qof si shakhsiyiis u shaqaysanaa ma aad ku shaqaysanaa beesh habar jeclo ma qanacsana wali wax naqsada waxay leeyihiin sidaan ugu lisnay noogu hambayn waayahay oo maxay rabeen inta ka badan isbergi shirkii ceelaf weyn waa nagii niri uga hiilinay beesh habar waa صح ay leeyihiin صح hiilkii aan hiilinay iyagii wuxuu dhisay marka anaga waan qadiyo waa anaga marka muxuu nasiibay leeyihiin dawladaha hoose barakacayaasha gaashaandhiga oo aan shaabad balahayn صح janaka ciidamada shaabad leh bas wasaaradda ma shaqaysan wasiirku marba laga dhigay nin bacadla nin haystay inuu carwo meen origin Soomaaliya carwo haystay baa laga dhigay waaya oo leeyahay beesha Ciisa leh ninka carwada jooga ayaa magaalada ka jooga u yeeray ninka la keenay position maaha iyo wasaaradda ka xanaaqdo beesha habar jeclo ah wasaaradda awqaafta oo maxay ku xanaaqan yaanu reero wadaadba ma leeyahay bilay wadaad ma qabno anaga نقباش أنا قلت عجينا إذا كبرت كلا جيس. ولاد كده حبوا معايو. صح. وزارة قافتنا. نيك اللودي بقى وزارة قافت. لا بتشربوا هذا. واقرما. ولا ريال بشي رمضان تا. وينو أرقني. بالرواصون. بالرواعيد. إن بالرواصون. بالرواعيد. ولا ريال بالكذب. بالكذب ماتوا. بالرواعيد. شوف. عيد الأضحى. وعيد الأضحى لك. صارك تزحمر هذا. صدق ما بهذا انت كل جروسك مرانيا شيك وما صح ميرح كسو غير ما جرت واسك فريون ما مساج بالعيل لو سو ريلو كينيا ماي امامدا يكون في داسا ku qalas way horta inta way fahamsantay marka waxay ma saan anaga naga jii ha wuxuu dhibay beesh ayuub oo iyana aan hore u ahaan jiray wasiir sax wasiirka caafimaadka way wasiirka caafimaadku waa kuwa wasiirada waaweyn oo u fiican dabcan anigu halka waxaan ka dhigi lahaa waxba yara khaldeenay beesha waxaan dhibi lahaa hadaan qalka hayn lahaa wasaaradda waqafta ayub ma xajir berigooda kii u dambeysay culumay ahaayeen ayaga hooy culimada la dhegeysan jiray ay ahaayeen hadda waa bogsoo wasiir baanay doonan rabash baanay doonan dad baanay dhibin dagaal baanay cid horseedin sax ya culimo la dhegeysto oo culimo kala sii dhasha ay igu wardamisay damka dadku isbedelayeen dabcan dal rogana ku dhacay rogana ku dhacay intaasna waa intaa way waxa soo baxay markaa saddexdan qolo ee aan ku yiri saddexda habrood yaasiin maxay ku soo shaqo tageen wasu'aal qoloba waxbay iib geelisay si fiican oo tii anagu saasaan sameynay maadaama aan sidaa keenay oo dalka waxa soo gelinay wayn anagana noo abaal gudaa beesha habara wax leeyahay canshuurta ugu badan ee Soomaaliland anaga bixina ko Allahu a'lam hay لكن هي وسيله كدوديان صح عنشور تاسي كسو شقه تageen anaga waxaan u sii wax xilal ila weyn wax ku gorgortanta moogta qoladaasi ku soo shaqatay iyo canshuurtaasi ku soo shaqatay way beesha habriyoonis ama beesha garxij fa isku dheh oo madaxweynuhu ka socdo canshuur kuma soo shaqatay sax buurti gacan libaax ay korna anaga ay fuulaano way ila weyn isbartaay si fiicna buurti gacan libaax ay ku soo shaqatay niweena idinka soo shaqatay iyana waa kuwa ilaahay heer madaxweynuhu ku helay si fiican beesha maxaa soo hadhay habar jeclo ceelaf weyn heshiiskii anaga go'aan ayaa ku soo shaqatay hala kala baxaa marka hala kala baxo
marka reerihii kale de maxay ku soo shaqo tagi nin kasta wixii loo soo booqaadana meesha habar jecel marka kuwii kale bosiisnadooda way ku qanceen waxay ugu qanci waayeen iyagu waxa leeyin annagaaba heshiiskan keenay oo beeshan garxiiska raacnay oo Muuse bixi xagga ka hadnay ama riixnay noomada abaal gudin wali waa ku taagantaa baasheen wali waa ku taagantaa way beeshaasi way guuxayaan koo burco aad loogama soo dhaweey sax marka dawladii hore markay ahaayeen sheegaanta waxay dhahan farteeda ma eednay sax oo Muuse bixi sidii aan berigi ugu helnay laftiisa waxba noo siin oo sidii aaminsan sax imika tan hadaba gacantooda eedeen soo la isma salaamin oo ceelf weyn salaanti ceelf weyn soo gacantii ma gacantooda eedan hadda waaya mar labaad suulkii gacantii marooyin mar labaad 5 sano kadib ayayno ballan waxaan eegi doonaa wixii ka soo baxa marka waxaa jira yaasino dawladii ma la aato mucaarad sax laakiin waxa loo baahan yahay mucaaradku inuu noqdo mucaarad time la siiyo iyo mucaarad macquula waxa laga hadlayo haddaad iska tiraahdo reer hebel baa xukunkii qabtay reer hebel ka daba tag waa dhibkeeda leedahay rag isa siiyey wasiiro sax waa Cabdiraxmaan daba ordayay ayaan la siin wax qaday habeen may aamusin markii waa qayriyeen shir jiray koo laba nin ugu muhiimsan baan ku tusayaa way oo u qaadan waayay in laga tagay waaga anu ma garanay waxay doonayeen miduu iga qoslay wuxuu yiri ma ninkayga proposalada u qori jiray hay'adaha صح عبد الرحمن هي هذا مركز الله اللي بكره قال افك قالت انا قرجي وي waxa la igu bedelay nin naadeerkaya wuxuu ku eedeeyay ninka saacad af Ingiriis kuma hadli karo buu mo oranin af Ingiriis kuma hadli karo saacad wada socota kuma hadli karo saacad ma la hadli karo saacad qabad mar haduu saacad ku hadli karayo laakiin aanu dhaafin karayn de meeting uu dhamaaday saacad waa fiican yahay قال marka la shirayo waa 20 minutes iyo 30 minutes صح saacado badan صح ma saxabkay waa meesha ku qaday labadaan dadka laga tagay in yar dul mari doona oo laga tagay hay'adaha haray oo waxa haray wasiir ku xigeen hay'ada madax banaana haray wasiir ku xigeenna haray meelo badan oo position badan ma aha wasiir safiirada dhiman waxa soo dhiman way wuxuu ka tagay Maxamed Cabdullaahi كو oo laga filayay in uu malaha wasiirka arrimaha dibadda helo way ninka waa laga tagay nin la hadlayo oo Cabdiraxmaan Cabdiraxmaan Ali Beyle isagu lama soo shaqeyneen xisbigana dadku baa magaciisa soo galiyay maaliyadu qabanaya iyo qaar ka soo horjeedo leh hadii ilaahay ku reeyay wuxuu dawladdu xil qaban doona dawladdii Soomaaliya xil ka qabtay sida daraad xaq uma leh way Ismaaciil Yare way oo reer macalin waxna isku ahaayeen Muuse Bixi oo xiiqay oo ciidamada dhulka ku dhufo oo dagaalami jiray aad u kulkulaa ninka waa qaday labo laakiin ku degdeg meeno de in meel kale loo wado ayaa dhici karaysa way iyana samir buubaanti waa garta cadaani wasiir cadaani way wasiir koro finta waxaan jeclaa halkan isna shibri wala wareejiyay sidoo meel uga dagaalamayo shir xagga ku qabo oo Canada ku qabo oo hadii Edmonton tag oo xagga tag lahaa lama soo hadal qaadin way ramax nin la yiraahdo waa maqlay oo reer braa oo maalin la xitaa intuu isku soo waray daayirro badan aniga iyo daayiradeedii waanu odaynay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hadalkaas madaan waan garanay meesha uu la jeedo laakiin aniga reerkiiba ninkaas Cabdiraxmaan baa lagu rinday bulaha waaya ninkaasna loo aamusay waaya ya waa gartay cukusi saaxiibka cukusi isna lama soo hadal qaadan wali oo lacag wareejiyay culay shiin culay ma culayga hargeysa ayaa isaguna culay weey midna waa culay midna waa culay waa dhii waaya culay oo isna faas ka dhigay inta u socotay oo habeen iyo maalin xiiqsanaa isagana lama soo hadal qaadin marka qolada uma tacsiinayee waxaan tusiyaa inay dhici karto in fursad kale ay banaan yihiin loo wado iyo inay dhici karto adoo xisbi la soo shaqeeyay inaan lagu hayr garayn inaad ogaatid dabcan waxaan kaloo soo gabagabayn doonaa anoo laba clip keeni doonaa in dadka in wasiirada laga dhigay aanay ahay 5 sanadood ee Cabdiraxmaan madaxweynaha yahay ayaa nin walba 5 sanadood dhamaysanaya maaha waa meerto
مدى حق لا يقال دونا مدى ما دونه وزير لا قاضي حنوسن دونه هذا وزيره اي السنه كدب لا قاضيه نينكا لا كينيا طبعا ها قفكون تان ديار وياه واسع هل منا ونو دغيا nimanka laga tagay reer Soomaaliland way guud ahaan hay waxa dadka ku badan xasadka طبعا waxaan arkay qoraallo qaar ay soo qoreen oo ay Ingiriis ku soo qoraan haddaad aragtid in Soomaaliya Ingiriis soo qoray قالوا isleeyahay ha akhristaan ha arkaan way waxay soo qorayaan wasiiradii la doortay inay eedeeyaan nin ayaa wuxuu soo qoray nin weynaa wasiirada la doortay cusub mid ka mid ah wuxuu lacag u geyn jiray lascaanood oo maaragtay oo khaatumo ayuu lacag siin jiray si ay uga soo dagaalanto Soomaaliland ayuu lacag siin jiray haddana ku reer khaatumo maaha waa reer awdal bisad baan ugu xumaaday ninka uu sheegayo saaxiib baan lahaa way weligii xitaa ereyga khaatumo kama maqal afkaasit ereyga qabiil kama maqal reer nacayb kama maqal dadku aad baan loo yaabay qofka waxa fiican miyaa taqaanaa mise waad u malaynaysaa isagu marka wuxuu isleeyahay ninkaas sumcadda ka dil si wasiirnimada looga qaado oo cid kale loo soo waa intaa qura marka beriga hore dadku waxay soo jireen ninkaas waa argagixisadu ka mid yahay sax ashabaab buu ku xidhay sax si looga dido oo booq loogu sameeyo marka waxaan odhan lahaa warna walow meeshaada iimaanso oo haddii adigu aad leedahay waxba lagaa dhigi lahaa oo lagaa dhigi waayey iska armaad waxaan wax ka fiicanba heshaaba marka intaad nin walaalkaaga xasdi lahayd oo aad sharaftiisii sumcadiisii aad dhici waxyeeleleen adiguna ma jeclid in lagu yartaas in lagu dhaw yaasina laba arrimood baa soo gabagabeynaya labadan kin way waa laba nin oo cabanaya midna madax dhaqameed yahay oo uu leeyahay bagaash buu noo keenay ninkan bagaash waxa la iska qashin daadu alaabada isku jacburka ninkan wuxuu leeyahay nin waxaan ahay anuu ma garanayo Soomaaliland intaas ay dhaariga tahay nin iga aqoon badan ma joogo dadka aqoon badan waa jira dugna buuxa marka waan eegayo dawladda imanka meesha ka dhalatay Cabdiraxmaan uu u yahay hormuudka mid baan kula talin lahaa ninka madax dhaqameedku iska siyaasadda kala wadooda isagu hawlo kale sax isagu waa sheeko gooniya ninka kale uu cawday way labada nin nooxooda faakahaysi bashal way horena hadalla adaga noocaas uu yeelay jiray laakiin ninkan kale qayla dhaan buu soo diray hayaraysanina nin weyna maartay yareys ma leh ninka arrintiisa dib loo eego waxa jirtay nin yaqiin baa la yaasino quraanka wuxuu ka yaqiinay alxamdu way marka waxa la yiraahdaa hala sameeyo odayaal quraan saar sameeya oo reemigu markii barwaaqadayo ma xoolaha 10 baa lagu tufi jiray dabcan dadkana 10 ku soo tufa odayaashaasi haday 8 yihiin haday 5 yihiinba 5 oday ka soo qaad miyiga dhan bay soo marayaan marka ugu horeysa meel walba neef baa loo qalaya xagga way dhirgayaan صح neefna waa siinaya way waxay soo noqonayaan iyagoo soo hilbacunay oo la soo xooleeyay xoolo wata way odaygii alxamdu yaqiinay ayaa isir ka qayb gal nimanka quraanka akhriya way nimankana waa quraan ruugo kala badbay dushaya way isagana way yaqaanaan odaygii baa haga reebina war haga reebina number 4 number 3 markii dib uu waryaare wuxuu si laga tag moogta war quraankana alxamdu ha ka tagina annaha iga tagina طبعا anna odayaasha haga reebina quraankana alxamdu ha ka tagina quraankana alxamdu ha ka reebina وانا صح إذا مركز فاتحة صلى الله عليه وسلم مركز الدعيبة يسقى لو ريح حلك في عواي يا قاب قصد الله نلاقر ولا نلانا نكاد ضمبي إيه بروبوسلا غوريشي وحن أورن لها ور الحمد لله هكر ريبنا قرانك إنك هكر ريبنا وذاك إنه هكر ريبنا رجعه إيه على قدره مال ملح وقليه مركز صار لي أقول ما لها مليه صح لكن مرتدي سانو ولا واسطة لبضل من كمان سهر رسيا نك قرانك الحمد لله كريبنا ده نقاسي تأوفي يعني نك هذا ورتا عنكو سي أبا الله وعرو أبا الله وعرو وحبا حولنا وحبا حير كيو إمرين حولنا يسيني حشايا نين اللي بكاحتي عمي وأيام نين اللي بتوقع بس والله وبالله إنا نقول هذا كريم إنا نساعد إنجليش يا عربي تقول هذا قرحت وحن لا يحد أبتيال أبا الملح دين نيك الدنباء أبا الكسوغيس يا هذا قرحت بان أبا الكسوغي يعني
isagaa waalan reerka bay reebay waa iyagaa halkaasay igu yimaadeen oo yidhahdeen maxaad in adeerkay anigoo u dhaaranayo le kursi aan anigu bannaystay kursi aan bannaystay markaan lahaa kursigayga cidimo fuuli karto ninkii barbowtalada mashaariicda qori jiray ma nin ilaa aqoona baa jooga somaliland xaguu ka jooga waraaqaha dibadda loo diro barbowtalada ninka waa hadle ninkaasoo ninka labaadna aan gelin oo madax dhaqameed isaguna isla beesha ka tirsan cirra wuxuu magacaabay bagaash buu magacaabay halkaas suuga bagaash amba gadbadii hudheerka la sheegi jiray markaas soo bar la baro jirin wuxuu furay hebel bogdad hudheera maantuu furay hudheerkiis waxay noqotay buurtii foolatay la jiirbe dhashay soo la baro jirin waanu foolanay 7 sano la foolanay 7 sano foolay maanta wuxuu dhalay dowladdan dhiciska waliba niman aan Soomaaliland aqoon u lahayn ba ka taliyay waliba waxa ka taliyay dad aan u turin cirro iyo dowladnimada iyo qarannimada marka waxa la wartacabkii 7 sano lagu tabcay in la keeno dowlad rag madaxya buuro odayaali ay tir hogaamiyaan laakiin deenu maxasta noo soo ururiyay iyo maatida noo soo ururiyo uu noo soo ururiyo baarteen in booshka noo soo ururiyo hargaha booshka loo timay bal ku tiriya uu ka dhigo dowladdiisa boosh lama filay anu waxa la xukuumadda gabiga waa failure xukuumadda gabiga ku noqosho baanta cirra noo sheego inta bilood la sii shaqeynaysa xukuumaddaasi hadduu yiraahdo 6 bilood la sii shaqeynaysa wadda loo sabri wala sugu 6 bilood ninka waa khili walaashin barnaamijkeena maanta intaas